aqoon isweydaarsigan ku saabsanaa arrimaha dhisidda nabadda oo socday muddo 5 maalmood ah oo la soo gabagabeeyay ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Machadka Cilmi Baarista Arrimaha Nabadda ee Samadoon. Waxaa ka faa'iideystay boqolaal dhalinyaro ah oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir. qaar ka mid ah dhalinyaradii ka faa'iideysatay aqoon isweydaarsigan ayaa u mahad celiyay Machadka Samadoon iyagoo sidoo kalena tilmaamay inay muhiim tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed loo qabdoodo ku saabsan arrimaha nabadda. ciwaankani kooban ee muhiimadda leh aan ku soo qaadanay 5 maalmood ee inoo socday oo ahaa peace building sida nabadda loo dhiso. waxaan filayaa dhalinyarada hadda waddankeena joogto inay u wada baahan yihiin nabadda. barnaamijkan waxyaabihii ugu badnaa aan ka bartay waxay ahayd in nabaddu dhalinyarada niyadoodii lagu soo celiyo mar walbana lagu soo celiyo si ay nabaddu u dhisaan ayaga. mid ka mid ah lagjarradan ciwaanadii inoo bixinayay markii laga hadlayo nabadda ay jirto laba qof oo isdagaalsan ama dad isdagaalsanay waxay ka dhaxeeyaan heshiisiinaysid inaad u hadashid si daacadnimo ah. speak you hate eray qurux badan aan ka diiwaan geliyay intaan joogay maalmihii koobnaa ay ka qayb galayeen. speak you hate markii uu dhahaa waa inaad u hadashaa si daacadnimo ah. waa la wada hadlaa mar walba dad aan la heshiisiyaan waa la dhahaa laakiin waxa adag in loo hadlo si daacadnimo ah. Awiis Sheekh Ahmed agaasimaha Machadka Samadoon ayaa sheegay in ay ka qayb qaadan doonaan cilmi baarista ku saabsan arrimaha nabadda iyo xasiloonida isagoo ballan qaaday in ay sii wadi doonaan barnaamijyada noocan oo kale. Machadka Samadoon waa machad u taagan arrimaha nabadda iyo sidii ummaddan hoggaan midaysan iyo ummadda meel fiican loogu jeey lahaa. ma ahan goob oo runtii falqaladii laga abuuro oo dadka wax kale loogu sheego. waa goob nabadda lagu dhiso waxaa la rabay nabaddaas ka qayb qaadanaya runtii gacan fiican siinaya cilmi baarisna ku salaysan istiraatiijiyo fogna ku salaysan. waxaan isleeyahay marka waa madal furan oo dadku waxa dhabta ah oo runtii taagan idoon la iscolaalidaynin looga hadlo. waxaan isleeyahay topiga aan qaadanay weeyga la soo dhaafay isbuucani wuxuu ka hadlayay reflective strategy dialogue oo ah inaan dhabta ka hadalno annagoo cidna colaadinaynin si aan u heshiin lahayna aan u hadalno. ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay Senator Ilyas Xasan Cali oo ka mid ah baarlamaanka aqalka sare ayaa u mahad celiyay Machadka Samadoon kulana dardaarmay dhalinyaradii ka faa'iideysatay aqoon isweydaarsigan inay u gudbiyaan bulshada wixii ay ka barteen aqoon isweydaarsigan socday muddada 5 maalmood ah. farxad iyo sharaf ay tahay inaan idin kala qayb galo gabagabeynta barnaamijkeeda socday maalmihii la soo dhaafay. walaalayaal marka waxaan rabaa dalkaanu nabadda u baahan yahay cid kale gacantooda kuma jirto idinka gacantiina ku jirta waxa aad barateenna waxaan rabnaa inaad inta ka dhabaysaan si ilaahay idinku og yahay aad ummadda bulshada dhexdeeda ula gashaan aad tidhahdaan war maxaan isku dilaynaa horta maxaan isku qarxinaynaa maxaan isku dhacaynaa dalkan waa Cabdullaahi Maxamed Jubbaland TV Muqdisho.